بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkani waa walwal online waxaad ka bogan doontaan saaxiibayaal akhyaarta sharafta leh channelka iyaga ku xidhan abwaan professor Ismaaciil Jaamac Jibriil loo garan og yahay Ismaaciil Culujoog nin caan buu ahaa nin taariikhda Soomaalida taariikhdeeda kamid ah buu ahaa nin reer berbere ah buu lahaa ahaan jiray makhaayad buu ku lahaa la yaado gaala fadhiisatay reer berbere iyo nugaal iyo meel walba waa laga yaqaan Culujoog wuxuu dhalay dad badan waxa kamid ah professorada deeqa Culujoog oo gabdhihii Soomaaliyeed u horeeyay wax bartay oo cilmiyada sociology-ga iyo bartay ah ee noqotay gudoomiyihii akademiyada fanka iyo suugaanta dhaqanka Soomaaliyeed noqotay wasiir noqotay xildhibaan noqotay baa kamid ah Saciid Culujoog Allah ya raxma oo lahayd mashruuci baradhada marka dad badan weeye oo dhaqan Ismaaciil waa nin mutacallim ah wuxuuna soo noqday laftigiisu gudoomiyaha fanka iyo suugaanta Somaliland waqtigii inay Ibrahim Cigaal 2 sanadood buu ahaa gudoomiyaha fanka iyo suugaanta waa nin abwaana qoraa ah sheekooyin badan buu leeyahay waxaanu idinka dhargin doonaa hadii Ilaahay idinka ka dhigo oo Ilaahay inoo samo ogolaado taariikh fara badan hadda maanta wuxuu ka hadli doonaa nafta magacyadeeda qaybtani waa qaybtii hore wuxuuna ku luuqayn doonaa gabayo diiniya uu kamid yahay gabayga la yiraahdo ilaahow ilaah kale ma jiro adiga mooyaane waa nin oo kumbeyd ka kooban waana nin naaxiyada badan ku luuqeeya gabaygaas waxaad naga filataan isaga oo jiidali naaxiyada jiidaliyeed ee ninka la yiraahdo maaweel luuqdiisii wata iyo isaga oo nimanka hiraab la yiraahdo suugaantooda wata ama ninkii la oran jiray Maxamed Gacal Xaayo labadaas qaba insha Allah taala waa lagu soo akhriyo doonaa welcome ku soo dhawaada ka faa'iideysta wassalaamu alaykum warahmatullahi taala wabarakaatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد هم بدوينها عالم كان نقضى ونايا ملك سيجوغان با سلامة إلهي بانكو سلامي والوال أونلاين waxay idin soo gudbinaysaa barnaamijyo taxana ah ku saabsan suugaanta Soomaalida dhaqanka hidaha hadii la bakooray shaqaafada cilmiga sayniska iyo waxyaalo fara badan oo la mid ah fanka iyo suugaanta guud ahaanba waxa kale oo mahad aan u jeedinaynaa Xasan Maxamed Dhilood weeye iyo Maxamuud Aadan Suldaanka oo sawir qaadaha iyo duubaha iyo Xasan Maxamuud Dhilood isku dubariday barnaamijkan walwal online barnaamijyadaas oo ka daawan doontaan online ka walwal barnaamijkan ugu horeeya oo aniga la igu casumay aniga Ismaaciil Jaamac Jibriil Ismaaciil Culujoog oo ayatullah ku magac dheer waxa jira nafta waxa la yiraahdo ayaan ka sheekaynaynaa nafta quraanka Ilaahay kaga sheekeeyay oo aad ogtihiin aayadaha ku saabsan abuuritaankeeda iyo bixitaankeedaba culimada loo reebay culimo walwal online ka sheekayn doonta ayaa imaan doonta hadii la yiraahdo insha Allah laakiin anigu waxaan ka sheekaynayaa dhaqan ahaan nafta marka ay baxayso waxay Soomaalidu u isticmaasho iyo kelmadaha ay tiraahdo iyo macnayaasha ay u taqaano waxay Soomaalidu tiraahdaa naf bay tiraahdaa waxay tiraahdaa cabdo waxay tiraahdaa neef waxay tiraahdaa ruux waxay tiraahdaa keerkeeriso waxay tiraahdaa rubad waxay tiraahdaa head waxay tiraahdaa kado ama kado labadaba way tiraahdaa intaba suugaan iyo sheeko dhaqameed baa ku soo arooray ku saabsan nafta oo markay baxayso waxa jira qofka marka naftu ka baxayso in wax sabab la yiraahdo ay jiraan oo sababahaasi ay noqdaan sabab ku saabsan qofka inuu hadii uu dhimanayo ama la dili doono oo kale tala ka soo la yiraahdo uu ka joogi waayo oo sida uu saahid qamaayir haday sabab gali maanka waa la iska suurshaa sarbeeb malaga baa laga dhigaa saacadaad dhiman solina maysid taladii Ilaahay ku leeyahay waxa jira marka saahid wuxuu halka ku tilmaamaya haday sabab gali maanka waa la iska suurshaa
marka yacni qofka sababtiisu ay joogto maanka waa laga qaadaa ayuu leeyahay saahid qamaan weeye ninka loolan jiray sarbeeb ma laga dhigaa saacadaad dhiman solina maysi talada ilaah sida ku leeyahay yani kullu ma qadar rahmaanu mafcuul weeye saasay u soconaysa soo jooga qofkii laga waayo soo jibsa laga helaa waxa soo dhan baa la yiraahdaa taas waa sababaha laakiin naftu marka ay baxayso sida ay u baxayso oo cilmiyan ah oo saacadeeda ay dhamaatay xagga diinta aad loo inaga sheekeeyo aqoonta islaamka ku islaamka nahay baa og oo aynu ku aaminsanahay laakiin dhaqanka Soomaalidu waxay tiraahdaa su'aalo fara badan bay dadku weydiiyaan oo ah dadka la jooga qofka dhimanayo oo kale ma keerinaysa oo kale ama ma ku jirtaa weli neefti kor ma u baxday iyo waxyaalo la mid ah qofka weydiiyaan kuwa kale markaa ka jawaaba weli waa ku weyn tahay weli waa ku jirtaa arrimahaas iyo erayadaas la isticmaalaa head marka aan ugu horeyso soo qaadano head mooya habaarba looma dhinto hatta fanaantu way ku heesaan head baa la yiraahdaa nafta waxa la yiraahdo Sultaan Maxamed Cali Shire ayaa oo suldaankii bariga ahaa gobolada bariga suldaankii ugu horeeyay libaaxa ahaa abwaankana ahaa Sultaan Maxamed Cali Shire ayaa col u watay wiil yar oo la yiraahdo Maxamuud Shaarig oo geeyo ku jooga 14 jir ah ayaa soo raacay dadna war wiilkeena naga celiya baa la yiri wala duulaya Soomaalidu hore way isku duulisatay dhaqan ahaan dabadna wiilka yar inaga celiya 14 jirka ah wiilka yar inuu ragga raaco doonaya markii dhowr jeer wiilkii faras lagu celiyay oo fardo hararaha ka mareen oo dib u celiyeen geeyo ku jooga mise mar walba geeyadii waatan xagga hore ragga ka soo martay markaas suldaankii wuxuu yiri war iska soo daaya wiilka yar ama head baa wada ama hal baa wada taasoo macnaheedu yahay ama warinkan yar aynu taag weyn waa dhimanaya oo naftiba keerkeenaysa oo sabab baa ku jirta meesha ama hal buu helaya oo geel dusaam ku yeelanaya waa ninka 14 jirka ragii horena mar hadii uu ninku 14 jir ya gaaro wuxuu ahaan jiray rag subag baa lagu canqarin jiray rag hadii la ku roon yahay hilib baa la siin jiray afa jirka markuu yahay neef cuni jiray ama wax buu ka tagi jiray taas dhaqan loo lahaa waxan bariiska iyo hadii la ku shaaha iyo waxa balayahay waxa lama aqoon marka wiilka ila mehed baa wada buu yiri ama hal baa wada soo daayay wiilka sidoo colkii ku raacay colkeena geel buu soo helay dabadeedna suldaankii saamigiisii baa dhutusiyay Maxamuud Shaarig taariikh kale fara badan uu ku leeyahay xagga amkaransa suugaanta ah oo dagaalka habar mulle Sultaan Maxamed Cali Shire iyo Boqor Cismaan soo qaadeen daraawish lagu soo qaaday iyadoo guriyihii la joogay ayuu arkay faras buu wataa jiira la yiraahdo Maxamuud Shaarig dabadeedna colkii daraawiishta oo tagay degmadii ay ka soo duuleen labada boqor Sultaan Maxamed Cali Shire iyo Boqor Cismaan oo 10 kun colkoodu gaarayay ayuu arkay la yiri hilbanoodon dabadeedna Maxamuud Shaarig geeyo faras buu ku joogaa jiira la yiraahdo dabadeedna waxa dhacday inuu markiiba arkay daraawish inay dunidu qabsatay oo guriyada daba martaysay dadna farda badan baa lagu baaciyay oo fooqay iyo dhibci ay kamid ahaayeen iyo calanside iyo doodimeer iyo xinfinin way gaari waayeen daraawish waxay yiraahdeen faras shalay maray la yiraahdo oo abshir roor kula maqnaa mudug ayaa gaari lahaa bahol qabasho la yiraahdo lagu soo ooday oo 25 talaabo ah halkaas uu ka booday faraskii jifiik ku dhuftay oo shan jir buu habeenkana u qalay dabadeedna colkii buu yimid boqorka labada boqor waxay ka soo horeeyay ma aragteen may waxay ka dambeeyeen ma jiraan duulimaad baynu ku jirnaybe daraawish ayaa dunidii iyo dhulkiiba qabsatay dubha loogu noqdo meeshii ayuu yiri marka ninka weeye ninka uu leeyahay ama head baa wada ama hal baa wada waxa kale jiray rubad ayaa nafta la yiraahdaa rubadna macnaheedu waxa weeye waa nafta koofil markii la dilay 1913 baa la dilay buurdha baa lagu dilay dagaalkii ruuga ayaa lagu dilay koofil dagaalkii ayaa lagu dilay koofil ruuga la oran jiray dulmadoobe warbaana gaalku yaqaan ama ingiriisku hadal waxa ugu dambeeyay koofil bes 12 baa la dilay abshir xooraan la yiraahdaa dilay baa la yiraahdaa mar Ismaaciil Maraad dilay baa la yiraahdaa marna waxa la yiraahdaa waxa dilay Aari Cali Suud Xidig cid kasta baa hadda soo daraawish hebel baa dilay faankaas ma jirin waxay ahaayeen ninkii noolan hore lumino naftaada hageyn naartii ninkii tagay diintu tabimaysay allow dad yaan faranji ku talin waxaasay ma garanaysaa wagla la oran jiray ay ku heeso jireen janna dagatay ina dagaalka waa ku gali jireen daraawiishtu
dadna jihaad buu ahaa fii sabiilillaahi ah iyo gaalka la dagaalamayo dabadeedna halkaas markaa koofil 12 lagu dilay si kastaba loo dilay wuxuu ahaa korneyl laga soo bedelay Nigeria 6 biloodna Djibouti buu joogay Soomaal Krobski ama ciidankii awrta ayaa madax looga dhigay dabadeedna meesha lagu dilay gaalku uma dirin baa gaalka Hargeysa joogay uma dirin ee barasaabka ahaa isaga dhowr jeer yiri dadkan la soo weerarayo dulmadoobe iyo daraawiishtu ilaa iyo aroori ilaa meel walba oo gaari jirtay haddii la bakuuray markaa burdhaabi halkaas ay daraawish timi dhowr jeer bay xoolo ka qaaday isagu markaa wuxuu gaalkii ku yiri barasaabka ahaa anduulo ma u yara kaadi buu yiri in ka sareeyo madax buu ahaa maxmiyadda Ingiriiska boqortooyada London baa markaa la weydiinaya talada iyo arrimaha waxa ka qabto ilaa xagga sare laga soo baxay lagu duulo amarku iskama bixi karo dabeedna iyadoo la dirin buu awrtii madaxda u ahaa Kamal Krobski ku duulay koofil dabadeedna halkaas lagu dilay ina way saxmeen la yiraahdo oo habar jecla ah oo ina way saxmeen loo oran jiray ayuu dadkii u tagay koofil ayuu xoolo badan ka dhacay dabadeedna ninkaas habaaray oo ku yiri sayidku wax galay raacdooda la isku soo gaaray adiga iyo gubnigaad wada goobatal noqoy gidligaanku ka joogsay oo guuxa ka damiyay ku googostay nimankii kufriga gaajada u qabay afkuna gow ku yiri xaajadaad gees oo badisay guuga hagaarin adaa reer tolka gaajadaas baday si uu yuuday ee gabaygu ugu yuuday ba koofil loo dilay dabadeedna kabtan Samaris in la yiraahdo ka hooseeyay oo baayarag ahaa markuu arkay aroortii in dagaalka taagan yahay wuxuu yiri tabta Afrigeesta aan dagaalano taasoo macnaheedu ahaa dhabar jabin aan halkaas ka dhigno koofil waa diiday wuxuu yiri safka cadawga ka horjeeda inuu gaabto marhabo halkaas markaa ay arintu noqonaysaa safka cadawga ka horjeeda waa inuu balaadhaa dabadeedna wuu dilay halkaas markaa lagu dilay 12 markay ahayd baastood buu ku dagaalay markii uu dambeysay bes baa hada lagu dambeysay dabadeedna gabayga la yiraahdo ada koofil oo jiitay aan dunida joogayn erayada ku jira waxa kamid ah markay rubadu jawtiri orbay iga agjibsheen markii naftu iga baxday bay daraawiishtu markaa cayaar iyo cayaar isku dareeno igu oriyeen oo hiro ba daraawiishtu ay una jireen noocaas bay ku qaylin jireen markay cadawga ka adkaadaan adaa koofil oo jiitay aan dunida joogayn adiga jidkii lagu wada jimci la'aaneed jahannama la geeyo haddaad aakhiro jahato nimankii jannu kacay warbay jirin insha Allah iyo jameecooyinkii iyo haddaad soo hartay aragto sidoo eebahay ku jirabay mari jawaabteeda daraawish karnaga madeyntan iyo jeerkii Ingiriis jab oo waxa ku dhacay shaciya baaruud le waxay noo jubtayna waa jamasho diineed le jigta weerar bay goor barqaa nagu jiteeyeen le anigana sharka iga heleen shalay jihaadkii jeeniga hortiisa rasaas igaga jiideen le markaan soo qiraahdo afka iga jifeeyeen kolkay rubadu jawtiri orbay iga jibsheen rubad waa macnaha labaad aynu soo qaadanay oo rubadu markay rubadu jawtiri rubadu waa nafta orbay iga jibsheen tusaalaha dhaqanka ah ee gabayga ku jirta ayaynu u soo qaadanaynaa taana waxa kale oo jirta kado waxa la yiri ninka la yiraahdo aadan galay ayaa gabayga Ismaaciil Miro mariyay kibirka ku saabsan rag kibirka waa lagu faakaha la ogaado ayaa wuxuu ku soo darayaa beedad fara badan ragii kibray oo dhan oo nin waliba si uu dhintay marka dhibaato ama uu soo galabsaday aadan galay qaalin baa la yiri bixi wuu diiday baa la yiri wiilku soo ilaa 20 jir baan ahay laba naagood qaba waan xayroobay cali garimale nin anigoo kala ah oo 20 jir oo laba xaasile oo carruur leh oo xoolo leh nin bandilay iga bixi qaalinta dadna wuxuu yiri war meefka ciilku ma daragay ma aakhira lagu gumaysan jiray halkaas aadan galay sababahaas uu aakhirkii markii dambe u dhintay iyadoo sheekada kale inaan ku sii dheeraanayn laakiin waxaynu uga jeednaa hadda umuraha ma kaadsado ninkay ka doshada sabab Ismaaciil markuu tusaalaha gabayga kibirka ku saabsan sheegay Ismaaciil Mire wuxuu yiri umuraha ma kaadsado ninkay ka doshadaysa kalaanku lahaa ina galay ku hay gadaalka kaarka ma joogeen hadduu keeno tuludii baalacad kaliya kuma jireen kii uu quursaday ragow kibirka waa lagu faakaha la ogaado marka umuraha ma kaadsado ninkay ka doshadaysa arrimaha uma fiirsado ama si nidaamsan uga ma baaraandogo qofka naftu ay markaa kaarinaysa weeye aadan galayna malkulmoodkii waa saarnaa sidaas markaa kadadu waa taa markaa kadana waa la yiraahdaa umuraha ma kaadsado ninkay kado ama kado shidaysa
mar haddii naftu ay ku qahayso ama qofka ay sababtu ka dhan tahay yacni waxba uma fiirsan karo weeye sababtii baa ka joogta waa dhan tahay waxaan kaloo maqalay in dadku ay yidhaahdaan 40 maalmood baa qofku uu ku jiraa haddii alaba ku roon yahay nafta waan la ogeyn 40 maalmood ayuu ku jiraa oo qofku uu bedelan yahay xaaladii aad ku tiqinay iyo wixii oo dhamay iska bedelayin war 40 kiiba ku jiraa baa la yiraahdaa qofka xataa loo taag waayo waxa la yiraahdaa war ka iska daay kaas 40 kiiba ku jiraaye waxa dhacday haddii alaba ku roon yahay taasina waa kado waxaanu hadda sheegnay kado iyo head mooye habaarba looma dhinto waa fanaantu ay ku balweyso iyo rubadna waynu sheegnay waayahay keerkeerisaad jirta iyaduna keerkeeriso waxa weeye naftu qofka marka lagu dhibayo sida quraanku sheegay ilaahay inoogu sheegay quraanka culimada mutaawideenayna haddaanu ku noqdamaba ay ahayn culimada taa ka hadlaysa laakiin waxa weeye keerkeeriso xanuunka qofka marka lagu qabto dadka gaalada si daran oo darban baa ilaahay uga qaadaa wanaasicaati qarqan wanaashidaati nashtan oo marka gaalada malaa'ikta ka qaadan ku dhaartay iyo munaafiqiinta waa wanaasicaati qarqan wanaashidaati nashtanna waa malaa'ikta dadka muuminiinta sida wanaagsan ee jilicsan uga qaada sida baciir la taabtay oo kale culimadu ku fasiraan marka naftu walow ilmo yar oo waxayna ahaatee sakaraatul mawt baa jira sakaraatul mawtka oo laga ducaysto oo nabigu ka ducaysan jiray sakaraatul mawtka marka waxa dhacda dhaqanka Soomaalida waxa kamid ah oo ay Soomaalidu dhaqan ahaan u leedahay qofka naftu ay ka bixi weydo ama ay cabaar silciso way keerkeerisadeen war keerkeerisadii baa haysa keerkeerisadii waxa weeye sida neef la gowracay oo kale oo marka mid laga qaaday dhinac walba bab afarta koon isu tuuraya neefku oo neef la gowracay geeda kama waabto baa la yiraahdaa marka qofka naftu marka ay hayso haddii aan loo sahlin oo ilaahay aan u sahlin isaga awood leh si dhibba leh ayaa looga qabtaa nafta haddii kalena si raaxa leh ayaa looga qabtaa ilaahay waxaan ku barin kuwa sida raaxada leh looga qabto yaani in ilaahay naga dhigo naf baa la yiraahdaa neefna waa la yiraahdaa marka qofka loo soo galo dadka la jooga neefti wali ma ku jirtaa iyo nafti wali ma ka baxday iyo nafti wali ma ku jirtaa baa la yiraahdaa taasina waa dhaqanka Soomaalida ayaa ka mid tahay neef ayaa la yiraahdaa ruuxna waa la yiraahdaa ruux abdana waa la yiraahdaa abdana waxa ay ka soo kelmad carab ay ka timiyo waa abdullah bay ka timi waa adoonti ilaahay weeye naftu waa ilaahay baa iska leh waxa jira in la yiraahdo Soomaalidu ay ku sheekaysato nafta markii la abuuray baa ilaahay yiri kuma anahay adna maxaa tahay dadna waxay tiri anta waa ana adiguna adiga tahay aniguna aniga anahay dabadeedna markaas cadaab la geliyay intaasoo sanadood bay ku jirtay ilaahay waa soo saaray culimada qudheeda culimadii hore qaar baa ka sheekayn jiray dabadeedna markaas uu yiri man anta wa man ana hadaba iyadoo intaasoo san cadaab ku jirto la soo saaray markaasay tiri anta wa ana adiguna adiga tahay aniguna aniga anahay oo way sheegan wadeenay adoon ilaahay tahay waa lagu celiyay misna markii dambe mar saddexaadkii la soo saaray waxay tiri anta rabbi wa ana abdak ana abdullah adna waxa tahay allahaygi aniguna adoontaadi baan ahay marka nafta quraanka si fiican baa ilaahay uga hadlay wana sheegay wax bini aadanka la geliyana ama xayawaanka iyada ugu qiimo badan nafta ugu qiimo badan bixideeda wax qadara iyo bixideeda oo xaq ah marka nafta si xaq daraa loo dilo iyo marka si xaq loo dilo waa dhinaca dilinka iyo baab xuduudka waa lagu sheegayo ilaahay xataa waxbuu ka xukumay xukum buu ka sheegay boqol ah oo kale qofka ma garanaysa magtiisa oo kale marka naftu saas horta qiimo u leedahay oo ay u tahay naftu waxa kaloo kamid ah sheekooyinka dhaqanka Soomaalida waxa kamid ah in reer dadka qalan jiray uu leenu soo hoyday waa sheeko qosol la yaab leh reerkii marka dadka qalan jiray oday baa u yimi odayga waa u soo hoyday dabadeedna odaygii reerka uu weynaa ayay maalintiisii waqtigiisii tahayo laga bedeli maayo odayga qabsatay qoratuur baa jiro odaygii reerka lahaa bay qabsatay odayga waxa la xilayo meel kale oo kaleeyahay waa barooranaya dabadeedna ninkii martida ahaa oo neef loo qalay halka loogu geeyay oo waxba cun kari waayay oday weyn baa meesha qaylinayo xar ku xiran yihiin baa wuxuu yiri oo qaylinayo barooranaya uu gabadhu yeero wuxuu yiri odaygan maxaa haya odaygii reerka waa odaygii reerka bay tiriyo kaalintiisa baa soo gashay madadiisii yaa soo gashay nafaanu helayn buu heeraya taasina mid baa ahayd mahmaada la yiraahdo nuur iyo naalayba waa u joogtaan ee naftu ay dhaafin nin la yiraahdo Maguure Axmed
oo dadkiisu ay gobollada Sool iyo Sanaag ku dhaqan yihiin dad aad u fara badan ka tegay waxa la yiri isaga ninka Naalay iyo nin xididana ma hadla yiraahdo ayaa nin waliba isaga oo nool dadkiisu ay ku gaadheen yaani fara badan buu ahaa Naalay Mugura la oran jiray dabadeedna ninkaas dad badan baa ka dhaqan oo soonayaasha la sacanooda la cirgaba inta u dhaxaysa iyo bidegaan dabadeed waxa dhacday inuu isagoo example uga dan leh oo la isugu yimi oo naftiina hayso oo mahmaada soo saaray oo u sheegayayna inaan naf qaban karayn ragii waa labaadka wahaba oo ciidana baa taagan oo urmahoodii hubkoodii sita odayga maxaa haya nafti baa haysa waryaalahan buu yiri aqli buu sameeyay war nuur iyo naaleeyaba waa u joogtaan naftu ay dhaafin nuur iyo naaleeyaba waa u joogtaan naftu ay dhaafin qolada habelada waa berebayana waxay ku heestay nuur iyo hadaba naaleeyayaal naftu halis ka shaqeey ma nageyn kartaa